Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. In badan ayaynu kala maqnayn. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta xogteenu waxa ay ku saabsan tahay qaybaha dhiigga dadka bini'aadamku ay u kala qaybsamaan. Group kasta waxyaalaha ay ku fiican yihiin, waxyaalaha ay ku xun yihiin, xitaa waxa aynu ku eegi doonaa mustaqbalka ma waxa ay u badan yihiin in ay dad qurux badan ama dad fool xun in ay la wadaagaan. Waxa aynu ku eegi doonaa cudurrada badanaa haleela, cunooyinka la rabo in ay cunaan iyo waxyaalo kale badan. Cilmi baaristan waxaa lagu sameeyay wadanka China. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa lagu tijaabiyay. Waa cilmi baaristii ugu dambeysay. Waxyaalaha la yaab kale aan la yaabo waxaa ka mid ahayd aniga groupka dhiigayga waxaa lagu tilmaamay waxyaalo badan. Dhowr iyo 20 qodob ayaa lagu tilmaamay. 1 iyo 2 iyo 3 mooye inta kale sax ayay noqotay. Taasoo aan isdhihi karo dadka badanaa waa ay ku qancayaan. Qodob kasta oo aan kugu tilmaamo khasab ma ahan inaad tahay. In aad tahayna waa dhici kartaa, in aadan ahaynna waa dhici kartaa. Waayo waxaan waa cilmi baaris. Dadka adduunka ku nool dhiigooda waxa uu kala qaybsamaan 3 group oo waaweyn. Group A iyo Group B iyo Group O. Haddii aynu eegno Group A, dadka dhiigooda uu yahay A waa dad badanaa wax qora waxna akhriya. Marka ay TV-yada daawanayaan waxa ay jecel yihiin in ay daawadaan barnaamijyada qosolka ah. Ma ahan dad dadka kale ku khaldama aflagaadeeya. Waa dad degan oo waliba nabadda jecel. Waa dad xarago iyo waliba labis badan. Waa dad aad iyo aad u xishood badan. Waa dad oofiya balanta ay galaan. Xitaa ma jecla in ay balamo badan galaan. Dadka dhiigooda uu yahay A waa dadka ugu maskaxda badan caalamka ayaa la tilmaamaa. Dadka dhiigooda uu yahay A hurdo badan ma seexdaan. 5 saac oo kaliya in ay seexdaan ayaa ku filan. Ma ahan dad hurdo badan. Badanaa waxa ay la wadaagaan mustaqbalka gabar ama nin fool xun ayay la wadaagaan. Ma ahan dad nasiib u leh in ay hantaan qof qurux badan. Waa badanaa waaye. Adiga hadaad hantiday waa meesheeda, balse waxa aan ka hadlaynaa waxaan waa badanaa waana qiyaas. Lama garan karo marka ay xanaaqsan yihiin. Si ay dadka kale u jeclaadaan ayay shucuurtooda uga qariyaan. Dadka dhiigooda uu yahay A badanaa waa dad saaxiibo badan. Ka waran dhinaca jacaylka. Dadka dhiigooda uu yahay A waxa ay si fiican isku fahmi karaan dadka iyaga la midka ah oo dhiigooda uu A yahay iyo waliba dadka dhiigooda uu yahay AB. Haatan waxaan u guda galaynaa dabeecadahooda xunxun. Dadka dhiigooda uu yahay A waa dad carab badan, dabeecadoodu ma fiicna. Waa dad walwal badan. Markuu taleefanka ku soo dhaco waxaa dhici karta inuu cabaar eego uu ka fakaro qofkani muxuu kuu sheegi doonaa, talow muxuu kaa rabaa, gaar ahaan qaraabad markii ay soo wacdo. Dadka dhiigooda uu yahay A ma ahan dad xiiseeya in ay cabaan caanaha iyo waliba in ay cunaan hilibka, balse waxa ay jecel yihiin in ay cunaan digaaga sida kalluunka. Dadka dhiigooda uu yahay A waxa ku habboon in ay badanaa cunaan qudaarta, waayo dhiigoodu aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay in ay cunaan qudaarta. Xanuunka ugu badan oo badanaa haleela waxa ka mid ah kansar. 20kii qof ee dhiigoodu uu yahay A 2 qof ka mid ah ayaa laga helaa kansar. Ma ahan annaga de Soomaali baan nahnay badanaa kansarna ma qabno. Waa dadka wadamada kale ayaa laga hadlayaa. Dadka dhiigooda uu yahay A badanaa waxa ka soo baxa dad qoraa ah oo iyo waliba xisaabiye ah. Dadka dhiigooda uu yahay A mar labaad baan ku celinaya waa dadka ugu maskaxda badan caalamka. Haatan waxaan u guda galaynaa dadka dhiigooda uu yahay B.
dadka dhiigoodu uu yahay B waa dad dabeecad iyo weliba dhaqan wanaagsan. waa dad hogaamiyayaal ah sida noocii hore ee dhiigoodu uu yahay A. halkaa waa ay ka siman yihiin hogaaminta. dadka dhiigoodu uu yahay B waa dad maareyn kara caqabad walba oo ku timaada. waxaa lagu tilmaamaa dadka dhiigoodu uu yahay B dad hadafkooda iyo weliba himiladooda ka miro dhaliya. dadka dhiigoodu uu yahay B waxa ay telefishinka daawan karaan muddo dheer ayay fadhin karaan, weliba iyagoo daawanaya xogta dhaadheer. sidaasi la mid ahna dadka dhiigooda uu ahaa A in badan ma fadhin karaan tiifiyada, iyagoo weliba dadka dhiigooda uu yahay A ay jecel yihiin shactirada barnaamijyada qosolka ah oo weliba gaagaaban. dadka dhiigoodu uu yahay B waa dadka ugu fiican oo lagu tilmaamo dhanka saaxiibtinimada ku wanaagsan, waana dad habdhaqan wanaagsan leh. waa dad naftooda sharixi kara oo u sharixi kara dadka kale waxa ay yihiin. waa dad jecel badanaa in ay ismuujiyaan. dadka dhiigoodu uu yahay B badanaa mustaqbalka waxa ay la wadaagaan qof aad u qurux badan, halkii aan horey usoo tilmaamay dadka dhiigoodu uu yahay A in ay badanaa mustaqbalka la wadaagaan qof foolxun. haatanna waxa aan u gudagalaynaa waxyaalaha ay ku xun yihiin dadka dhiigoodu uu yahay B. haddaad wax isku qabsataan durbadiiba waa xanaaqaya oo dulqaad ma leh. waa dad ilowsho badan, wixii aad u sheegtidba durbadiiba waa iloobayaa. dadka dhiigooda uu yahay B markii wax loo diro xil iskama saaraan, weliba si saxa uma qabtaan. cunooyinka ku habboon in ay cunaan dadka dhiigoodu yahay B waxaa ka mid ah in ay caanaha cabbaan, iyo weliba cunooyinka qudaarta leh baa aad iyo aad ugu fiican. shaaha rinjiga ahna aad ayuu ugu fiican yahay oo weliba bigeyska ah in ay cabbaan. xanuunada badanaa ku dhaca waxaa ka mid ah xanuunada maskaxda ku dhaca sida waalida iyo neerfooska. dadka dhiigooda uu yahay B waxa ay ku fiican yihiin sirdoonka, baarista cilmiga iyo weliba farshaxanka. aad ayay ugu fiican yihiin. dadka cilmi nafsiga barta badanaa waa dadka dhiigooda uu yahay B. haatanna waxa aan u gudageli doonaa dadka dhiigooda uu yahay O. waa nooca ugu badan oo ay Soomaalidu yihiin. waa dad isku kalsoon inta ay dadka kale isku kalsoon yihiin in ka badan. waa dad bulshaawi ah xagga dhexgalka bulshada. badanaa waxaa ka soo baxa dad caan ah. waa dad soo jiidasho leh. waa dad adkaysi badan, jirkoodana dhaawaca u dulqaadan kara. waa dad qaabka jirkooda uu aad iyo aad u fiican yahay xagga isteelka. waa dad mar walba xalin kara mushkilad walba oo ku timaada. waa dadka ugu hurdada badan caalamka. 24 saac ayay seexan karaan. meel walbana waa ku gam'i karaan. waxa ay nasiib u yeeshaan dadka dhiigooda uu yahay O dumarka ugu quruxda badan caalamka in ay hantiyaan mustaqbalka badanaa ayay nasiib u yeeshaan. sababtoo ah dadka dhiigooda uu yahay B waa dad xanaaq badan markasta oo dabeecad lahayn. dadka dhiigooda uu yahayna A si la mid ayagana waa dad xanaaq badan oo aan dabeecad lahayn. sidaa darteed ayay ku guuleystaan dumarka ugu quruxda badan caalamka in ay hantiyaan. dadka dhiigooda uu yahay O waxa ay jecel yihiin in ay cunaan hilib, weliba waxa ay cuni karaan hilib aad u badan. waxaa u fiican in ay cunaan cunooyinka baalka leh sida masagada, galleyda iyo wixii la midka ah. waxaa kaloo u fiican in ay cunaan cunooyinka borotiinka ah sida hilibka, kalluunka
digaaga, ukunta iyo wixii la midka ah. dadka dhiigooda uu yahay oo waxa ka soo baxa dad burburan sababtoo ah stress kuma qabto, borotiin badanna way cunaan. dadka dhiigooda yahay oo xanuunada ku dhaca waxa ka mid ah xanuunka maqaarka ku dhaca sida isxoqida, xiiqda, neefta, cholesterolka iyo wixii la midka ah. waxaa ka soo baxa dadkaas siyaasiyiin ayaa ka soo baxa. waxaa kaloo ka soo baxa dadka marketinga suuqgeynta sababtoo ah qofka suuqgeeyaha ah waa qof la rabo inuu dadka qanciyo, hadal ku qanciyo. waa dad hadal badan oo waliba furfuran.